هذا حسن أحمد محمد وأنا هدتك باهيدا قاركا تيقظة أد نوصو درتي ويسو قاردي لأن يرضى يربى يسو قارديسي أديك أنا هالكات كسب بحسي خير الله كوكو بدلو وابل ربران بانوسو فوت سارن دعادي هذه واد نجاه الشيء وادتك وحنا طريق بان الجوسية أنو باهن كوا نوك كأننا يجنا الله كأجرسيو لأن يرضى أديك سو أديك يا أديك أنا ونكوسو دعينا عمر درر يوحنا كوكو بندعو عمرك الله دير يا الله وخير قبادنا كوسو قلي هلكا باش تكسب بحساب خير الله كوكو بدلو يا شنا آخرية عمر درر بان كوكو دعيني وكا أنا وحبش قيس كريم بقى عندنا اللي قلي صحيح وخير قبيلة هالسيو امين عافمتنا الله ودايو امين مرادك دورنا بدك الله كسيو واد ما سنتاني معايو هاي السلام عليكم أصحابتا maanta waxaan rabnaa inaan sheegno deeqdana arkaysiina dhinacan taalo oo isku jirto waa faantadii biyi adoo muuski kulli maanta deeqda waxa noo soo dhibay walaalkeen Xuseen Axmed oo ku magac dheer Xuseen Qortaag oo diaspora Djibouti oo ku sugan Sweden markaas wuxuu yiri dadka masaakiinta curyaamiinta qolada oo dikabay adigu ayaan gaarsiinaa deeqda insha Allah xaqana waxa ku jirta kana waa lacag weyn lacagta waan siin doonaa dadka insha Allah waan caawinanaa marka barnaamijku wuxuu ku saabsan waa caawi walaalaha qof kasta oo dibadda joogo ama qof kasta oo walaalkii dhaamo inuu walaalina caawisiin way fiican tahay in la nanaku markaas maadaama rabadaan ba soo dhow in la iscaawiyo way fiican tahay deeqda imika xagga waxa ku jirta lacag ba ku jirta xoogaa lacag ku jirta xagana waa cunto biyo faantadii waxa soo dhama ku jira qoreecdi naga gudoom waxa ugu tala galay inaan walaalkeen oo Xuseen Qortaag la horto oo dibadda joogo Sweden barak Soomaa isaga deeqda uu ka soo dhiibay dadka masaakiinta ee danyarka reer Djibouti waxba haysan ayaa la siinayay deewa ka naga gudoom walaal waan ka gudubay walaal adiga inaan ka soo dadka masaakiinta soo sii waan ka gudoon saxayo ma soo tahay walaal عليكم السلام ماما حاجه waxaan kugu sidnaa maanta waa hadiyad xoogaa hagan lacag ku jirto iyo maxay ahayd xoogaa qoraac yar hagan kugu jirto oo inaan walaalkeena Xuseen la horto oo dibadda joogo Sweden dadka baahan ee masaakiinta ugu tala galay hadiyada maadaama rabaan soo dhowdahay oo ku deeqay waa taas xagan lacagti naga gudoom waan ka gudoon sax waan gudoon xagan lacagta qabso horta weeyo xoogaan xagan waxa kugu jira waa qoraac yar maanta ka dhiganaysid دواك هوجو نودعي ودعينا إن شاء الله ودعي وخير قبيلة هالسيو امين عافمتنا الله ودايو امين مرادك دورنا بدك الله كسيو واد ما سنتاني معايو هاي امين يا اي ماما السلام عليكم بابا maanta waxaan kugu mininaa deeq lacag ku siino iyo xoogaha quraacdaada iyo roodmo insha Allah deeqdaasna waxa ka dambeeyay walaalkeen Xuseen Axmed Xuseen Qortaag la diaspora Djibouti magaalada Sweden ama dalka Sweden joogta marka dadka taagta daran leh ee liita baahida gaarka lama garatay ay ugu soo deeqay insha Allah ma in kasto rabadaan ay soo socoto deeqdan lacagta naga gudoonaabo tan kale naga gudoon cuntadan iyo maalmahaagi waa kaas u ducay walaalkeen هذا حسن أحمد محمد وأنا هدتك باهيدا قاركا تيقظة أد نوصو درتي ويسو قاردي لأن يرضى يربى يسو قارديسي أديك أنا هالكات كسب بحسي خير الله كوكو بدلو وابل ربران بانوسو فوت سارن دعادي هذه واد نجاه الشيء وادتك وحنا طريق بان الجوسية أنو باهن كوا نوك كأننا يجنا الله كأجرسيو لأن يرضى أديك سو أديك يا أديك أنا ونكوسو دعينا عمر درر يوحنا كوكو بندعو عمرك الله دير يا الله وخير قبادنا كوسو قلي هلكا باش تكسب بحساب خير الله كوكو بدلو يا شنا آخرية عمر درر بان كوكو دعيني وكا أنا وحبش قيس كريم بقى عندنا اللي قلي صح
hooyo ubax geedii waa ka xagga waxa ku jira waa lacag weeyaan oo inanka walaalkeen dadka caawinay dibadda joogan nuugaa soo dhiibay waa aragtay soo maaha naga guddoon marta lacagta xaggaana waa xoogaa yar isku qureecanaysa saaka qureecidii nuugaa soo dhiibay inamada walaalkeen dibadda jooga Sweden oo dadka baayada gaarka leh dadka iska tabaalaysa soo caawinayo waa aragtay soo maaha naga guddoon marka ummadda muslimka waxaan ka codsanaynaa hooyada maamada dhinaca fadhida ee kaligeed iska hurdo ee iska yar xanuunsanayso inaad soo caawisiin intii karaakiina qof kastaba intuu korayo inuu ku soo caawiyo hooyada xanuunsanaysa dhinaca fadhida ee iska hurdo dhakhtar bay iskaga baahan tahay meel aad dhibsato ma haysato halkaa bay gashaa annaka maanta xoogaa wixii lacagtii aan haynay annagaa soo guddoonsiinay qof kastaba intuu karaankiisa karayo ha soo caawiyo hooyada oo dee dhinaca lagama waayo hooyo hayo hooyo maama haye ay maama ilaahay adna ku caafiyo hooyo xagana waxaan uga mahadcelinaa si gaar ah walaalkeen Xuseen Axmed oo magaca Xuseen Qortaag oo jooga Sweden aad iyo aad baad u maasan tahay dadaalka aad qabatay caawitaanka aad u soo bixisay maxay ummadda ay dhintay masaakiinta ee iska baahida gaarka marka waxaan Xuseen hambali ilaahay ka khayr siiyo anaga ilaahay naga khayr siiyo ummaddu wallahi maanta si fiican bay ku duceeyeen ma qoran karayaa waa kaas doona insha Allah hadii la dhawaado Xuseen aad iyo aad baan ku hambalyeynaa dadaalka iyo fikradda iyo kartida soo muujisay insha Allah xaqan iyo xaqi ka sii sareysana ummadda oo jirina dadkuna oo gaarsiinay